12 bisha August caalamka dhamaantii waxa laga xusaa maalinta dhalinyarada adduunka. Haddaba magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxay kamid ahayd meelaha sida gaarka ah maanta lagu xusay munaasabadaasi. Munaasabadani oo qaban qaabadeeda lahayd ururka ay ku midoobeen dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo ayaa waxa ka soo qayb galay qaar ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland, ururada bulshada rayidka iyo qaar ka tirsan ardayda jaamacadaha magaalada Hargeysa. Waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay boorka ugu sareeya ururka dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo. Dhamaantii waxa iskugu nimid maanta inaan xusno oo u dabaaldegno maalinta dhalinyarada adduunka oo ku beegan 12 August oo sanad walba caalamka loo dabaaldego maalinta dhalinyarada adduunka. Sanad kasta waxa la sameeyaa halkudhig u gaar ah maalinta dhalinyarada adduunka. Maalintan haddii aan dib u yar noqono waxa la sameeyay 17 December 1999. halkudhiga sanadkan waxa la yiraahdaa Safe Space for Youth. In dhalinyarta loo sameeyo Safe Space for Youth marka la yiraahdo wax badan baa soo hosgalaya. In dhalinyarta loo sameeyo waa package dhan oo isku xidhan oo dhalinyarta ka saacidaya inay waxyaabo badan fursado u helaan. Soomaaliland haddaan dib ugu soo noqono dhalinyarta caqabado badan baa ku xeeran, ha noqoto shaqo la'aanta, ha noqoto tayeynta waxbarashada, ha noqoto waxbarashada madaniga ah, ha noqoto maalgelinta iyo fursado la'aanta jira, ha noqoto ka qaybgalka siyaasadda, ha noqoto tahriibka, qaadka iyo qabyaaladda. Sidoo kale munaasabadaasi waxa ka hadlay qaar ka tirsan ururada bulshada rayidka ah. marka la dhalinyarada intii halkan fadhida hablaynimada ma aha dhalinyaradu waa noocyo fara badan oo kala duwan ma aha intan tayga xiran ama maxaa la bisan in badan oo kala baajita dhalinyarada oo danyara oo maxaa la yiraahdaa dhibaatooyinku haystaan geedka baxaya oo dhalinyarada geedka oo kale weeyaan oo wax koraya weeyaan haddii geedku koritaankiisu istaago wadankuna wuu istaagaya. Waxa gabagabadii munaasabadaasi soo gabagabeeyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka injineer Xuseen Ibraahim Booni. waxaan doonayaa inaan idin sheego inaydun leedihiin dhalinyaro awoodda ah 54 urur ay sahrakiin iminka halkan ka sheegtay oo kamid ah golaha sare Soonyo 54 urur ee kamid ah Soonyo ama ka tirsan dalada hoos yimaada inaydun dhalinyaro ahaan la xisaabtantaan qorshayaashiina u gudbisaan. Xamse Cilmi, telefishinka caalamiga ah ee Universal, Hargeysa.